بلو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد ما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. goobtan iyada aanu ku sugannahay waxa weeyaan seerihii magaalada Boorame. goobtan yar arkaysan intan leegasa quruxda leh waa meel aad yar u kooban dalkeena hadii dhamaantii ma ka wada dhigan lahayn meel wax lagu beerto ama dhul wax laga soo saaro sida marka arkaysan uu wada qurux badnaan lahaa. nimcada halkan waa arkaysan xagan hadaa eegtaan nimcada meeshan daadsan dhul walba halka yari makaanu taaganahay waa qaybtii garowga laga beerayay xadgan hadaan u yara kacnay naga xigta xagan bariga caada ka soo baxa iyo ka dhaca labadaba waxay naga xiga dhulkii cawska lagu beerayay hadii aynu dhulkeena sida inta yareen markaan dhex taaganahay inuu beeran lahayn dhamaanteed waxaynu noqon lahayn dad aqniya ah oo dadka ugu qaniisan ah dunida ugu qurux badan laguna soo dalxiista caalamka daafiisa oo dhanba maxaa talo inaga ugu sababay inaynu dalkeena inta waxa ka soo saari weyna aynu wiilaliyo gabdho tahriibno adeegto badda iyo doomaheena liqliqaan halkaas oo ku baabaano dhowr sano kadib saan u soo tahriibno odayaashana iska wada kaxooshi doonaan iska wada gowwi doonaan dhalinyarada badda ku dhamaan doonta markaan waxaan leeyahay dhamaantiin baanu dhalinyarteena dhulkeena uga faa'iideyno intaan aynu ka taaganahay in leeg iyo in ka badan baanu sameeyno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh su'aalan ku weydiino walaal Ismaaciil Allah ku barakeeyo si wanaagsan baad u hadashay bal dhalinyarta maxaad kula talin lahayd in maad aragtay dalkooga inay joogaan maxaad kula talin lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan kula talin lahaa dhalinyarta kulli waxay ummadi ku tanaadaa ay hore ugu martaa ay qeyrkeedii qeyrxigeedba ku dhaaftaa ay ku raaxaysatay hadiyo habeen ugu jirtaa sidii ay u gaarsiin lahayd meel ay ku culeynaysaa oo cararaysa u suxul duubaysaa ay geed dheer iyo geed gaaban oo fuushay waa dhalinyarteedu soo kici lahaayeen waxa kaliya ay ummadi ku tanaadaa waa dhalinyarteedu waxay u qabtaan marka waxaan dhalinyarteena kula talin lahaa iyo madaxdeena u maamulaysa iyo culimadeeda iyo aqoon-yahankeenaba inay dhalinyar tayeela soo saaraan oo cilmigooda dhulka uga faa'iideeyay iyo dadkooda baan cilmigooda aan ahayn wax inta lagu shubaan soo noqonin in madaxdeena iyo dadkeena aqoon-yahanka ah ay hormoodkan ku dayanayna ay soo saaraan dhalinyaro cilmi leh oo cilmiga dadkooda iyo diintooda iyo dhulkooda uga faa'iideeyay su'aal kale walaal way cawaaqibta jirta dalkeena Soomaaliland inaynan jirin wax fara badan iyo maad aragtay farsamo fara badan ee dhalinyarta ku shaqaysan karaan haday wax soo bartaana dameelay kaga shaqaysaneen baa jirin bal arrinkan maxaad kaga jawaabay dawladda maxaad u jeedin lahayd midaas waxa weeyaan mid aan leeyahay waxay ummadi ku tanaadaa ama ay ku horumartaa ay qeyrkeedii qeyrxigeedba ku dhaaftaa ay filkeedii filxigeedba kula tartantaa waa dhalinyarteena dhalinyarta marka aqoonta la soo baray aqoon wax taraysa lagu shubo si iyaguna u soo celiyaan wixii la geliyay ee lagu shubay waa inay helaan meeshii ay ku soo celin lahaayeen ama ay ku soo bandhigi lahaayeen dawladdeena marka waxaan leeyahay dhalinyarteena aqoonyahanka ah ee sanad walba baxaysa intaas oo kun jaamacad ay ka qalin jabinayaan intaas oo fiilo kala duwan inuu mid waliba fakalkii uu bartay wixii uu ku soo bartay si uu ugu shaqayn lahaa ay u samayso kuwii beeraha agriculture ka soo baxay kuwii dhaqaalaha ka soo baxay kuwii financial ka soo baxay kuwii economic mid walba in loo sameeyo marka xaggan hadda yar eegtaan qaar qalin waxa halkan jooga waxoogay bir hore cilmigooda soo qoobay laakiin yaram niyad jabsano madaxay gacanta isku haya bal wiilka wada ka tahay marka halkan naga xiga uu yara wareystay waxoogay xagga soo qaar kale ayaa taagan iyaguna waxay ka fakirayaan sidii bal dalka ay uga tahriib lahayn hadiyo habeen intaas aynu soo koobi lahayn